بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta waxaan isugu yeernay qaybo ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho si ay noogala qayb qaataan baahinta baahida masjidka Umar ibn Khattab. ugu dambaystii wuxuu soo gaaray qaybtii ugu dambaysay oo dhameystirka ahayd. waxaan horta ku mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo noo fuudeeyay in halkan soo gaarno thumma dadkii ahlu khayrka ahaa ee ka qayb qaatay. maalmaha dambe marka maadaama masaajidkii qaybtiisii kore ay taagantay oo meel fog laga soo arkaayo dadka qaar waxay isaga qaateen masaajidkii inuu dhamaaday. dadka dhismooyinka ka shaqeeya ama dhismooyinka dhistana waxay og yihiin marka la soo gaaro finishinka meesha loo yaqaano inay tahay meelaha ugu adag dhismuhu uu ka dhameystirmo oo runtii aan aad u muuqanaynin laakiin kharashka ugu badan uu galaayo. masjidka fikradii aan ku dhisnay intaan ku soo gaarsiinay waxay ahayd in aan dadka Soomaaliyeed ahlu khayrka la wadaagno musalla inay uga qayb qaataan ama sajaayad wax la yiraahdo ama intuu qof ku tukado taas oo qiimaheedu uu yahay $500 sidaas dad badan marka oo dal iyo dibadba jooga ay $500 ugu sadaqeeyeen waalidiintood dhintay caruurtooda ay duco u rabaan sadaqa jaari oo masjidka inuu Ilaahay u geliyo kana aqbal ay ku weydiisanayaan muraadiyo badan oo ay leeyihiin ay u soo niyeysteen. in badan way soo dhamaatay. waxaan noo haray hadda qaybaha dhiman ee dariishadaha iyo sida ay tiin injineerka inoo sheegi doonee musallayaashii dadku ay sadaqaysanayeen waxaa ka dhiman 1061 musalle. marka 1061 gaasi oo qof meeshuu ku tukado oo halkii musalle uu yahay ayaa waxaan rabnaa maanta inay noqoto sidii dadka ay mar kale ay u noqon lahaayeen dad arintaas ka qayb qaata. haddii aan u qaybino Soomaalida yani adduunka daafiisa kala joogta inta Ilaahay wax uu siiyay 1000 qof way ka badan yihiin. haddii aan gudaha iyo dibadda aan fiirino marka waxaan soo jeedinaynaa 1061 gaas sajaayad ama musalle oo halkii salli ama halkii musalle qof intuu ku tukado ay 500 tahay inaan u helno dadka qayb qaata. waa 500 qof wuxuu bixin karaa mesela 1000 waa laba qaybood ayuu qaatay ama laba musalle. hadduu qaato 2000 afar ayuu qaatay. marka tiradaasi oo kooban ayaa masaajidka uu ku dhameystirmi karaa. waxaana saa u yeelaynaa oo aan rabnaa inaan u dadejino oo aan u helno kharashaadkaas si uuna u kala go'in masjidku bishii Ramadaan fooda ay nagu soo hayso inaan ka gaarsiino musalliinta in ay ku tukadaan bishii Ramadaan oo bil aad u khayr badan ah oo khudbadina ay noo bilaabato. dad aad iyo aad runtii dibadda u jooga ama gudaha jooga ayaana soo weydiiya khudbadii Jumcada ee goormay bilaabanaysaa meeshii lagu khudbayn lahaa ee khayrka laga soo baahin lahaa ayaa dhameystir nooga baahan. haddii aanan helin arintaas iyada ahna yani Ramadaankii inuu dib nooga dhaco oo nala dhaafo dhismaha ayaan ka cabsanaynaa. laakiin haddaan jawaab degdeg ah helno oo 1061 gaas musalle dadku ay kala qaataan dadkii ahlu khayrka ahaa ee horay inta u soo qabtay mar kale haday ku rugaal celiyaan oo la isugu tago way dhamaanaysaa. waxaan rajaynaynaa in bisha Ramadaan quraankii lagu akhristo salaadii jamaacada lagu tukado taraawiixdii lagu oogo khudbadii iyo fadliga soonka iyo ahkaamta soonka looga sheekeeyo. marka baaqaas ayaan maanta la wadaagaynaa. aad waxaan ugu mahadcelinaynaa qof kasta oo ka qayb qaata baahinta fariintan iyo qof kasta oo ka soo jawaaba oo musalla gata masjidku 3 dabaq ee uu ka kooban yahay. waxaan ugu kalifaynaa saa u weynayno dhalinyarada ku soo xiran iyo dadka ku soo tukanaya oo badan daraadood in ay u helaan meel ay ku tukadaan. marka maanta dadku adduunyada badeeca ayay soo bandhigtaan sokor ayay gadaan bur ayay gadaan oo ay faa'iido ka raadinayaan. annagana waxaan soo bandhigaynaa sadaqa jaariya oo musallahan qofka uu sadaqaysto ilaa saacada qiyaam laga gaaray sida aan jecelnahay 200 oo sano oo soo socota habka loo diyaariyo in masaajidku sii shaqeeyo kadibna wax lagu sii darsan karo ayaan sidaas u sameeynaynaa. marka waxay taagan tahay man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaa'ifu lahu ad'aafan kathiira. ya ilaahi wax amaahinaya ama deyminaya oo ilaahi uu laban laaba. shaydaanku wuxuu ku qalqaalinaya qofka inuu soo waxba bixinin. ilaahina wuxuu ballan qaadaya qofkii wax bixiya wuxuu bixiyayna inuu siiyo inuu bixiyayna ugu dambi dhaafo. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. marka labadaas ballanqaad midka shaydaanka iyo midka ilaahay naftu kii ay doorato ayay noqotaa qaybta ilaahay ballanqaadkiisa doorato ahlu khayrka waa dad yani deeqsinimo lagu tilmaamay ajir badan ay leeyihiin ilaahayna uu laban laabayo wixii ay bixiyaan. shaydaanka kuwa raacay jidkiisana oo uu faqri uu sheegayna asagun baa khayrkii ka haray. ilaahay sida uu leeyahay waman yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi. marka waa naftaada ka qaad taadana u qaad
akaunkaaga adduunyo ka bixi kaaga aakhara dhigo yani masjidka ilaahay iyo sadaqadaasna ha ku dhismo cibaado ayaa meeshan loogu talagalay wa anna almasaajida lilah marka waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed ha ka soo qayb qaateen intaas waa musalla ahaan iyo guud haddii la isku dardarsado oo dadka dhalinyarada ah ay isku dardarsadaan oo min boqol intay isku daraan hal musalla intay ayagoo meelo kala duwan joogay dhahan aan hal musalla isla gadanno oo aan tijaaro raabixa oo ilaahay agtiisa aan dhiganana ayadana waa farsamo la samayn karo laakiin anaga baaqaas ayaan maanta idiin soo jeedinay ramadaankiina fooda ayuu nagu soo hayaa masjidka oo camiran oo qurux badan oo gogashiisii iyo dariishadiisii iyo agabka ka dhiman iyo korontadii iyo biyihii iyo weysadii ayaan rabnaa inay noqoto mid ay dadkii ay fahmaan oo ay ka soo qayb qaataan marka masjidkii haddii dadka qaar ay u haysteen inuu dhammaaday oo ahlu khayran ogahay yacni muuna dhammaanin dhammaystirkii ayuu u baahan yahay aan kaga dhigno khitaamuhu miskun wa fii dalika falyatanafasi almutanaafisuun khayr loo tartamo ayaa ugu fiican aadaa u mahadsantihiin agabka noo dhiman iyo qaybaha ay kala yihiinna waxay noo faahfaahinaa insha allahu tacaala injineer maxamed oo runtii yani juhdi weyn masaajidkan geliyey oo markii aan soo bandhigaynay asaga oo sawir masaajidka aan soo dhignay haddana asagoo camali oo ficil noqday oo yani la taaban karo oo dadkii hortooda u yaallo ayaan maanta maraynaa waxaan sugaynaa qaybtaasna inay oo dhammaystiranto xafladdii furitaanka iyo howlgalkii masjidkan insha allahu tacaala muddo yar oo kooban inaan ku gudagalno waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay ha idin barakeeyo intii hore uga qayb qaadatayna Allah ka aqbalo inta hadda aan ka dalbanayna Allah ka soo sahlo waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh